dalada dhalinyarada Sooyo iyo hay'adda SOS ayaa maanta tababar furtay ardayda dugsiyada sare Sheekh Cali Jawhar iyo Aadan Isaaq waxaana lagu baranayaa aqoon isweydaarsi hogaaminta toosan xalinta khilaafaadka iyo sameynta qorshayaasha waxqabad ee fog iyo ka gaabanba taasi oo la doonayo inay ardayda looga baahan yahay casharada si habboon uga faa'iideystaan waxa ugu horeyntii halkaas ka hadlay madaxa mashaariicda dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sooyo Cabdifataax Cabdullaahi Jaamac wuxuuna ka waramay ujeedada tababarkaasi tababarkan aanu furaynaa waxa weeyaan waa Aadan Isaaq waa arday 60 oo isugu jira ardayda form 1 ilaa form 4 ujeedaduna waxa weeyaan in iskuul walba loo sameeyo kilaab arday oo ardaydaasna ay ka qayb qaataan wacyigelinta iskuulka oo haday tahay nadaafada haday tahay kiriisada waxbarashada haday tahay geeda beeris iyo waxyaabaha si ay ardayda ugu tababartaan leadershipka iyo hoggaanka ugu tababartaan ujeedada maanta loo tababaraya waa ujeedadaasi marka maanta waxaan u fadhinaa dugsigii Aadan Isaaq waxa ku xigi doona dugsiga Sheekh Cali Jawhar marka iskuul walba waxa la tababari doonaa 4 cisho sidoo kale tababaradani waxay ka socdaan gobollo kala duwan oo Soomaaliland ka socdaan sida magaalada Hargeysa caasimadda waxay ka socdaan kale Berbera waxay ka socdaan Sheekh wuxuu sidoo kale ka socdaan Gibli waxay iyaguna halkaas ka hadlay wakiilka dalada Soonya ee gobolka Awdal Cabdullaahi Xuseen Caateeye iyo maamulaha dugsiga Aadan Isaaq Mudan Xasan waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxa qayb weyn ka ah dalada Soonyo oo fulinaysa barnaamijka laakiin 60kiinan waxaad u hesheen fursad baad u hesheen inaad ka qayb noqotiin barnaamijkan ana rajaynaa insha Allah afarta cisho halka joogtiin arday ahaan inaad aad uga faa'iideysatiin wasiiraan noqdo intaaba jiilkiinan ayaa gaari doona insha Allah iskuulkeeni Aadan Isaaq oo imika u haysto gobolka ahaan marka public waa leaderkii waa dugsiyada aan rabno inay la tartamaan public maxaa private iyo dugsiyada dalka oo dhanba Sooyo iyo Soosta oo hawsha inooga afarta cisho tababarka insha Allah Ilaahay naga dhiga kuwa ardayda ku lagu aanan waxa ay ka bartaan midhadeerkayga la arko sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay maayirka degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydhane iyo barasaabka gobolka Awdal Mustafa Cabdi Ciise Shiine waxaana hadaladoodii kamid ahaa marka intiinani iskuulkiina inaad u noqotaan indho iyo tusaale fiican wallaydin baro sida aad public ula hadlaydeen sida aad maamulku u hagi lahaydeen sidii aad isku tiirsanaan lahaydeen sida aad unions u yeelan lahaydeen isu dooran lahaydeen oo aad madaxweyne iyo maartay u dooran lahaydeen unionskiina gudoomiyaha waxbarashada runtii waa nin dadaalayo aad u dadaalaya waan raali ka nahay maartay shaqadiisa Wacd Raafi TV qaranka Boorama